xisbiga kulmiye laanta dalka Sweden oo kulan aad u ballaaran ku qabsaday magaalada Stockholm ayay ku sheegeen iyaga loo doortay gudida cusub ee xisbiga kulmiye ee dalka Sweden. gudidan oo dhawaan la soo magacaabay ayaa ka hadlay waxyaabaha ay qaban doonaan isla markaana ku nuuxnuuxsaday inay qaban doonaan doorashada xisbiga marka ay dhamaato muddada la soo doortay oo ay sheegeen inay tahay 2 sanadood. kulankan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u badan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha cusub ee ay garabkan doorteen Master Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo Ifraax Xaaji October oo iyadana loo doortay xiriiriyaha gobolada dalka Sweden ee xisbiga kulmiye iyo waliba madaxda kale iyo taageerayaasha kulanka ka soo qayb galay. xaqiiqatan waxaynu u baahanahay inaynu fahano mas'uuliyadu waxay tahay. mas'uuliyadu maanta 2 sano aniga gudoomiyaha xisbiga kulmiye laanta Sweden la doortay. dadka kamalihi kama mudni kama fiicni kama aqoon badni shakhsi muwaadin oo Soomaaliland oo xaq u leh baanahay inuu gudoomiye noqdo. waxa anigana xaq la igu leeyahay maadaama arinta la gartay oo cisiga iyo sharafta iyo karaamada ummadaydu u siisay oo bahweynta xisbiga igu siisay inaan ixtiraamo oo aniga runtii muwaadina oo la jecel kale qarankayga iyo ummadayda iyo xisbigayga inaan sida ugu daacadsan aan isugu dayo inaan u shaqeeyo. haddii aan kari waayo inaan idhaahdo walaalayaal mas'uuliyadii cuslayd way shaqeyn weydo waan wadi kari waaye maanta hebel baa inaga mudan ama heblaayaga inaga mudan ku soo celino 2 sano wixii ka badan 2 sanadood ee nala doortay maalinteeda waa ballan inaanu shirka xisbiga kulmiye ee Sweden aanu qaban doono haddii Ilaahay yiraahdo isagoo leh dhaqaale isagoo leh structure isagoo leh qaab dhammaystiran insha Allah bismillaahi kariim. waxa weeye xisbiga kulmiye waa laga soo hadlay wuxuu ahaa xisbigii hore kulmiye Sweden waa la soo shaqeynay hawl baan la soo qabanay laakiin sidoo ahaaba hadda waxa ka yimi ina hadda hoggaan cusub oo dhiig cusub ku shubay xisbigii loo doortay nasiib wanaag inama dhalinyaro ah oo doonaya hankooda inay meel sare gaarsiiyaan horana uga sii socdaan ayaa maanta maxay ahayd tole mutacalimiin oo jaamacada ka soo baxay ayaa maanta hoggaankii xisbiga ah. nasiib wanaaga kale ee meesha ku jira waxa weeye inay inamada dhalinyarada ahi ay u hoggaansan yihiin jecel yihiin hooyo la'aanteed iyo inan la'aanteed inuuna xisbigani iyo reer Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhanba hooyo la'aanteed inayna waxba qaban karin. sidaa awgeed waxa xisbigan ka go'an inuu sidaa u haweenka garbaha iskaga dhigay inay haweenku la shaqeeyaan. gudi ahaan hadii tiraad faaruq inuu kan wax kuwi in la waayo horta cid allaalay cid wax doortay sida wax loo doorto taas insha Allah ta'ala wax ka bixi doonta muddadan xilka hayno inaan meesha ka saarno hadii la hayraahdo. waxaan sameyn doonaa xubno la yaqaano dhaqaale la yaqaano iyo waqti la yaqaano oo wax doorasho dhacdo. ma jiri doonto qof 17 sano iyo wax ka badan xilka ku dhiganaado si isagu leeyahay. waxaanu ka duuleynaa xisbiga kulmiye inuu yeesho isbedel la taaban karo muddada xilkaan haweenka. magacaygu waa Faadmo Maxamed Geelqaad waxaana gudoomiyaha garabka haweenka gudida cusub ee la doortay. horena xisbiga kulmiye ayaan la soo shaqeyn jiray kamid baan ahaa waxaan galiyay juhdi tiro badan dhaqdhaqaaq tiro badan runtii taageero dhiigayga ayuu ku abuureeyay. waxaan ka soo jeedaa gobolada waqooyiga ee bariga Soomaaliland ee Sool. runtii isbedel doon baan nahay ninna jeebka xisbiga kulmiye ma jiro. gudidii hore ee aan la soo shaqeyn jirnay aad bay ku mahadsan yihiin meesha ay maanta gaarsiiyeen annaguna inaanu ka sii anba qaadno xilkaana loo doortay Ilaahay nagu asturo ay horta Ilaahay idinka baryayna annagana nooga barya. runtii waxaan rabnaa inaanu isbedel iyo dhaqdhaqaaq cusub ku sameeyno inaanu hoggaan xisbiga kulmiye xisbi soo jireena
وحسب الحاكم كمان تتلذ هيا هورنا وهاي إن شاء الله بإذن الله كريم مر أفرادي مر شرادي مر صدحنا وكوجو ليسون دونا وانا بإذن الله كريم وانا نقرب استاجينا. أبى لدي سلام يا كل ذا عصبة لدرتي وسود ويليا. runtii cabdirasaaq waa inaan in badan garanayo oo aan ku kalsoonay waliba haday dadnimo noqoto haday isu keenid shacab noqoto intaba waxaan leeyahay walaalo ku soo dhawow xilku waa wareegto shalay siiraya madaxweynaha maantana Muuse madaxweynaha beritoona Allahu a'lam cid noqon doonta kursigu waa wareegto waxaan sidaa kelmadii loo dhaliila oo aan ku arkay inta badan dadkan maaragtay markaynu xil qabano dhibaato xilkii naga haysata xil buu qof qabanaya مثلا ما كانوا سنة كيو دبي وحنا تكسيلة إذا قدومية تكسيلة ستوكهولم بانها سنة بيد دورتين هذا سنة كلي كوريين وان كده جمر كامش لكن ما همش وسيدي مال كرسي بهالي ناس كفر يدون لبعض هذا إنها يستواتا كرسي بقى قفله دورنا يا كرسي واحد ركيسا قف دائما هو يسكفر السنة يا واحد بيله يكرد يا كرسي واربرسون نقو واربرسون نقو ضد بقى وحكودي بتهدال حتى وحبه ودي كرين عند وحبه ما وضيعه ويسكفر يا قف قال كان بيوريا هذا الله هذا الشرع غير كي قالوا شيء داوم قريه وحن سيدنا وهاي حسب كلمية شرعي سوى حويا أنكو هاي إنه لبس سنة قف كل وصل نوم بعين كرامش لبس سنة ولا رديك عند ماتو ده ولا غير كأجنا هنوبيين غير كينا هنوبيين ماشي البنات ده أول ما تتكلم تفسد بقى ماشي توجد دوما دوما سلام يا مرتي شرفت قيمها إيه قايها بدن له إنه بسود دوية مقالة تنستوكم أنت سلام كبعدي هذا البدن ورن ما يوم اللي يقفي عينه هذا الكا لكن وحنا يا إيه روحهم بلياء وهم بليين يا قدوميها عصب قدوميها هيك عصب وحويان عبد الرزاق حاج سعيد حكايها عصب سويدن ومصطفى حسن عرب قرب كهوينك وفاطمة محمد قيلقاد ولا شيء حاج يعني إفراح حاج أكتوبر وقدوميها حرير كقبل السويدن مركا وحلنا هاي قدد عصبون سود ويننا تاجر يالبان وهين ولي يمكن وحنون هون تاجر ياشي إن شاء الله وحلا جاي بعد هدونين ونقيم نقول حبنا عصب. آد بندين سلام يا مضى شنقول روح بدنا يفرح نقص عسنتي كل مية وحسب آد وصوت شري وحسب مدة بدنا نرونتي عنو صوت تاجر شري مدة وين كيو دم بين أنا أدو صوت شقيي وحندريم يا إنه يهاي حسبي إن شاء الله بإذن الله كريم تشيري دونا ولينا أنا كسي شقين دونا دمان تيو وحنا يدك يهرب وصوت شقيي حسبي كم كل مية عاونا نيجوا شعوان هرتاجنا وفرحسن ولي بقى حلك ووريكتو هادي قفك حلك لقى قاضو معناه ذي قف لقى قاضي ما هو الحيوبي وحادو ديبت وقف ولا الكايا وحي عدو أدربتي وقف هالكي كسي هنا قاضية ننك ما بنشري هالك أو تاجي وحي سقول لي معها وحنا نية سميد واحد وناكسن حق إسلام نمو يا حق بني آدم تنمو أي نكو هذا الشقينو قلبي وناكسن سلامتك بعدي waxaan jecelahay inaan mahadnaqo xaflad dambiga ee quruxda badan dadkii ka soo shaqeeyay ee Stockholm aad baan ugu mahadnaqayaa ee ay ugu horeyso xoghayaha abaabulka Ifraax Xaaji October runtii may qabsoonteen Ifraax la'aanteed iyo dhammaan groupkii kale la shaqeeyay isku groupka ahaayeen ee Stockholm Stockholm waan ka filaynay inta iyo in ka badanba laakiin waxay oranayeen talo xafladiinu sidee u dhici doontaa kulmiyo maanta waxaan u sheegayaa in ay halkan joogaan dadka reer kulmiyo oo isku duuban dhamaantood inta ka annagu waxaanu ka mid ahayn groupkii hore shaqeynayay ee laanta Sweden farxad baanu kaga tagaynaa فرحتنا وحنا قصارينا هجانك عصب فرحتنا أنو كجتجينا وحوي وراك وحنا وجتجينا أنا جو كالجع الله نكرسي جو وجتجينا جروب كي كلا دمان تود إلانت سويدنا وين لقبان وحنا نرجعينا يسقون سيدا أنو يقولوا ابني قروح ذا بدن بلان وناق بدن
inuu markiisa si qurux badan hadduu ilaahay yidhaahdo uu ugu wareejiyana waan rajaynaynaa waananu ku rajo weynaa intaas inay ka soo guyi doonto marka hore hoggaanka cusub ee la doortay waan idin hambalyaynayaa runtii xusbigu wuxuu u baahnaa tacab iyo hiil iyo dhiig iyo firfircooni intana waa laydinka wada rajaynaya hadda dhammaantiin ugu horreeya guddoomiyaha iyo dhammaantiin aniga aan idin kala qaadqaadayn hoggaanka cusub oo dhammaystiran hoggaan dabcan waxaa laydin doortay waad garanaysiinoo xusbigaa wuxuu noqday wax qof jeebka ugu jira oo marka qof la soo dhaweynayo un ka soo baxa xusbigii fadhiid buu noqday Sweden oo dhan waayo un dhaweynaya markaas hambalyaan idin leenahay annagu haddaan nahay jaaliyadda guud ee reer Somaliland ama shacabka reer Somaliland ee degan magaaladan diyaar waxaan u nahay cid kasta inaanu la shaqeyno xusbi walba taageerada hiil iyo hoob aan la garab istaagno barkhad cabdilaahi maxamed Home Cable TV magaalada Stockholm ee wadanka Sweden